بشان هل مد أينو كدي كرينا وحين كدي كرينا شهر الوحدة بشي وحين كدي كرينا أمدو أي كم مدوبيسي ورسولك عليه الصلاة والسلام ما دام أمدي أمد كلا تكسنيد إن إنه بشر رسولك عليه الصلاة والسلام شدي سنة أي نقطة بشي أنجنا مدينيسي أو ماشي كتا شهر المولد أي نكرنا شهر الوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سؤال هذا مركز كوبات مركز حكتا وحن ربا موضوع مهم حلي قال للجوجو Soomaalida dhexdeedana aad iyo aad muhiim uga ah inaan wax ka baraarujiyo bishan lagu jiro sida la socotaan waa bishii rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu dhashay Soomaalidu ay u taqaano bishii mawlidka oo ah la mid ah bishii dhalashada bishan sida caadada ah muslimiinta badankood iyo Soomaalida badankood way weyneeyaan oo aad ay u weyneeyaan oo waana la xusaa sida la ogyahay لكن موضوع أن كربو إن كهضلو ما أهان بشان إلا وينيو أو الله حصو أو رسولك عليه الصلاة والسلام تاريخي كثير للشيء أو احتفالات لإسوي ما جو مبنان تهمي سما بنان كان كهربا إن كهضلو كاسماهن موضوع الربا إن كهضلو وحويهي كو وإلا فهما قضب كان علماء ويسكو خلاف سي هيسكو خلاف صدا هيسكو خلاف سناداني مجارسي سنة مال إيشك خلاف كودا سيكسو لورد راندريو مجاريو مال أصول سازدراديت خلاف كوا خلاف فرعية وحيابها فروع دا الله إسكوها السنة علمادو ويسوغون حريستان سيدو كلنا ويسوغو عذر دارا أوكي قضبك الله بعدنا الربي إن كهل وحوية دا تاسفهمتين وحا رسولك عليه الصلاة والسلام قداشي سكدب لكانو بدعها النقض لكن بدعة النقطة ببدعة لا توري مياه مسه وحاجرة بدعة إيشك لا قاضن كريو سيدا علماء بدن كودو أي قبان بدعة وحا رسولك عليه الصلاة والسلام قداش سكتب لكينو هدي أيليهن أصل من أصول السنة يوم مال دين تلو قول الله بتهدي وليه هاي وواحد لو يقانو بدعة حسن قضب كاسنا هدي أدفهمتان waxaan rabaa inaan idin sheego culimadu waxay leeyihiin labada culimo is khilaafsanba waxay leeyihiin makaana cadiima waa warafadii rasuulka kaleey salaatu wasalaam labaduba waxay dhaxleen rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxay leeyihiin ixtiraam iyo makaana cadiima meel weyn in la geeyo saas daraadeed khilaafka dhexdooda ah bulshadu haba ku kala adduunadaan oo midba bulsho haracsanaato laakiin bulshadu inay wada arkaan inay yihiin culimo oo la ixtiraamo bulshada baraha bulshada waxaan ku arkayaa in culimada aad lagu gafayo labada dhinacba in aad lagu gafayo saas daraadeed culimada in loo gafo horta ma fiicna qodobka kale oo asna muhiimka wuxuu yahay culimada dhexdeeda inay isku ixtiraamaan khilaafka dhexyaala haddii intaasi ay dhacdo maxaynu u gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa Soomaali haddii aynu nahay waxaan haysta ka weyn maanta wax furuuc la isku khilaafo la isku haysto wadankeenu waa kala qoqoban yahay ummadeenu way kala qoqoban tahay inta annagana midaynaysa ayaana ka badan intana kala geynaysa haddaba intana midaynaysa ka badan intana kala geynaysa haddii ay culimadu ay isku raacdo oo markaas la isku geeyo oo awoodda la isugu geeyo waxaynu noqon lahayn wadan muslimiinta hogaamiya sidoo kale isaguna dhibaatada maanta ku jiro ka kaca waxyaabaha waaweyn oo annaga inoo ah ii sheeg muhiimadda inoo leh waxa wanaagsan waxaas in juhdiga lagu dhumiyo waqtiga lagu dhumiyo ayaa wanaagsan sidoo kale lagu dhumiyo wacyigelinta la geliyo halkaas in la geliyo ayaa aad iyo aad wanaagsan laakiin maanta hadii la isku haysto mawlid ma banaan yahay mise ma banaan oo sanad walba ii sheeg problem ama mushkil laga abuuro ma banaan yahay mise ma banaana ii sheeg waxaynu ku ilaaweynaa waxyaabihii muhiimadda inoo lahayd qodobka kale oo isaguna ogaataan oo aad iyo aad muhiim u tahay waxay tahay khilaafka maanta u dhaxeeya culimada ee mawlidku ma banaaya mise ma banaana waa khilaaf la yantahi waa khilaaf aanan dabar go'i doonin haddii xataa culimada qayb kamida qaybtan kale ay soo aado qaybun baa ku haraysa qaybtana qaybun baa soo kacaysa waa khilaafun tawiil annaga horteena jiray gadaasheena jiri doona saas daraadeed dhalinyartu koow culimada ku ixtiraamaan labo إيش علماء الإحدى هاي استحتراما صدح وحيابها مهم كإنه أينو صارنا
fikradeenna wacyigeena juhdigeena aynu gelino isaga ummadda inaynu isku keenana aynu ka shaqeyno bishaan hal mid aynu ka dhigi karaynaa waxaynu ka dhigi karaynaa shahrul wahda bishii waxaynu ka dhigi karaynaa ummaddu ay ku midoobaysay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam maadaama uu mideeyay ummad kala tagsanayd inaynu bisha rasuulka kaleey salaatu dhalashadiisana ay noqoto bishii annagana mideynaysay oo meesha ka tahay shahrul mawlid aynu ka dhigno shahrul wahda وهذا يكون ضرح جيد إن شاء الله هذا أم سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته